waalidku maxay u adeegsadaan dilayaasha dahsoon waa ilmaha markaa u canaananayaan ugu qaylanayaan ugu caayaan erayada xunxun oo dhan u habaarayaan gacanta ugu qaadayaan isbarbardhiga ugu sameynayaan ilmaha kale ku dheerarinayaan waay maxay u sameynayaan sidaa waalidku 3 arrimood mid weeyaan ta koobaad waalidku good intention bay ka tahay niyad wanaagsan bay ka tahay waa sida uu malaynayo inay sidii wanaagsanada ilmaha lagu edbinayay tahay edbintaba sidan u haystaa balse toosan iskula talinaa ilmaha kibrin ilmaha garaac runta u sheeg dil canaano carruurta waxaa laguma eego marka waa iskula talinaa marka waa qaab aan u fahansanahay edbintaba inay sidaa tahay laakiin totally qaldan dhaqan diiniya maaha sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka mid ah haba yaraatee mana aha wax cilmiyan iyo psychologiyan iyo science ahaan iyo cilmi ahaan lagu daraaseeyay inay wax ilmaha edbiso maaha haba yaraatee meel ay edbin kasoo gelaysaa ma jirto kaliya waa un dulqaadka aadanaha xaaladka ku jira iyo ilmahaas short term solution weeyaan short waxya baqtiinta aan ku magacaynay marka waa dab yarad biyo ku shubasa baqtiya laakiin hadhow haddana is horinaya marka short term buu qofku ku yara nafisaya saasayn ugu malayna markaa iyo ilmo marka la bahdilay bahda laga saaro dabeetana ay nidhaa waa la edbiyay ilmahan aynu arkayna inaan edbinay marka saasay marka dhaxalo noqota la kala dhaxalo loo arkay in edbintu sidan tahay qodobka labaad waxa weeyaan waalidka laftiisa isagoo yar soo lagu sameyn jiray marka waa ku programsan tahay xataa hadduu fahmay inay qalad tahay weli wuxuu u baahan yahay marka ma fahansanayo gooruu sameeyo isma ogaanayo waa isagoo yar baa la garaaci jiray lagu qaylin jiray la canaanin jiray marka waa wax ku programsan ilmahana exactly ilmaha soo sameynaysa waxa ugu weyn uu ka dhaxlaya waxa weeye isaguna hadhow markuu weynaado inuu inta badan ay u badantahay inuu saa sameeyo waliba qaarkood waxa laga yaabaa inay bulshada lafteeda kale ay ku sameeyaan kuwa aadka amba loo jirdilay amba dhibkada loo geysanay marka arrintaasna waa arrin labaad waa halkay muhiim ka tahay marka waalidku intaan ubadka u barbaaran inuu marka hore naftiisa barbaariyo inuu isagu warqabkiisa iyo ogaalka naftiisa kor u qaado isbarto isku fiirsado naftiisa xakameeyo uu ogaado waxana inay tahay wax ay dabeecad ka ah oo naftiisa ku beeran dabeetana iska jaro oo ogaado ilmuhu inaanu qalad lahayn amba inaanu dambiile ahayn xagga ilaahayna dambiile kama aha dambiba looma qorin weli xaggaagana inaad saasoo kale ogaatid arrinta saddexaad ee u dambaysa ee ka mid ah sababahan tilmaamayna waxa weeyaan in waalidku ku nafiso stress iyo cadhada ila wanaga nidhi laba arrimood marka kulmaan waalidkii culays haysto oo stress gaar ku jiro iyo ilmihii xaaladka ay soo sheegnay mid kamid ku jira labadaas marka kulmaan weeyaan dhibka laakiin waalidku markuu sidiisa u degan yahay uu sidiisa u xasiloo yahay waa u dulqaadka ilmaha boodboodkiisa ciyaartiisa inta badan waxba ma dhibto marka waalidku marka uu cadhoodo stresska culayska naftiisa gudahiisa intaan culayskaas ku qarxin oo inuu ku nafiso marka relief buu ku dareemaa ismana ogaa edbina kama aha dhaxalna kama aha laakiin stresska culayskaas uma ka tahay mararka qaar saddexdaba way ka noqon kartaa isagoo aaminsan waalidku inay sidan edbin tahay isaga laftiisa markuu yaraana sida loola soo dhaqmi jiray ayuu haddana caadadiisa stresskiisana ku damiya inta badana saddexdaba waxaa laga yaabaa inay wada socdaan saddexdaba iyaga sababahan u sameynano marka ogsoonow haddaad ilmahaaga ku qaylisid dishid caydid garanay mararka qaar ilmaha inaad canaanato ood eedayso tiraada wuxuu sameeyey maxaad saa u samaysay saasaatays laakiin sababta caydoo imanaysa habaarka iyo erayada liidaya ilmaha iyo jeeska daawo afkiisa weyn daawo ilmada ka daaysa eeg ilmada waaweyn eeg ilmaha dareenkiisa lagu sii ciyaarayo lasii xaqirayo lagu sii jeesayo waxaasoo dhan waa nafis waalidku isagoo cadhada iyo culayska iskaga saaraya marka ogow arrimuhu iyo mushkiladu waa xaggaaga waalid ahaan ee ilmaha maaha